Assalaamu calaykum. Waxaan mar kale muuqaal idinkaga soo diyaariyey Alibaba oo ah platformka ugu weyn ee online wax looga iibsado China. Muuqaalkan waxaan ku falanqeyn doonaa 3 shay oo ugu muhiimsan marka aad rabto inaad Alibaba wax ka soo iibsato. Marka inta aanan bilaabin walaal waxaan ka codsanaa in channelka aad subscribe gareyso, sidoo kale muuqaalka si uu dad badan u gaaro like garee, siina share garee. waa mahadsan tahay. Haddaba aan u gudagalo 3 shay. 3 shay midda koowaad waxaa waaye waa inaad iska hubisaa ama iska eegtaa dadkaad wax ka iibsanaysid. Shirkadda ha noqoto ama wholesale ha noqdo, waa inaad iska eegtaa qofka aad wax ka iibsanaysid. Alibaba waxaa wax ku iibiya wholesalers iyo manufacturer, waana muhiim inaad iska hubisaa in ay yihiin dad aad ku kalsoonaan karta, waayo arrinta hand to hand ma aha oo ah iidib aan ku dhiibo sida caadiga tukaamanka markaad rabto inaad alaab ka soo iibsato oo tagayso kadibna maxayd alaabta soo qaadanayso lacagta bixinayso. Midaan waa ka duwan tahay, online ayaad wax ku iibsanaysaa, qof aadan u jeedin ayaad wax ka iibsanaysaa, weliba lacagta waad horumarinaysaa, kadib ayaad alaabta helaysaa. Waxaana laga yaabaa inaad welwel badan aad ka qaado iyo fakar badan. Haddaba taa xalkeeda waxa waaye marka horeba iska hubi inta aadan wax ka iibsanin, si aad isaga hubiso waxaad eegtaa iska eeg muddada uu kambanigu ama qofkaad wax ka iibsanaysid uu ku soo jiray suuqan Alibaba. Aniga tayda waxay tahay 3 sano iyo ka badan. haddii uu kambanigu ku soo jiray waa lagu kalsoonaan karaa. Sidoo kale waxaad eegtaa profilkooda oo fiiri inta dad ku xiran iyo falcelinta dadkii hore uga adeegtay. Falcelintu waa muhiim, taasoo ah dadka badanaa waxa ku iibiyo qofka wax ka iibsado wuxuu siiyaa review, waxaa loo yaqaanaa review. Qofka marka haysta 4 point something or 5 point something oo stars review ah, kolley maxay qofkaasito waa qof customerka si fiican ula macaamilo. Marka tusaale ahaan ayaan rabaa inaan idin tuso. waxaad furtaa applicationka Alibaba, kadib alaabta rabto search garee. hadda tusaale aniga waxaan raadin doonaa winter boots, kadibna waxaan sii raadin doonaa supply 3 sano iyo ka badan, kadibna profilkooda ayno bilaabo. Qodobka labaad waa inaad iska hubisaa alaabta aad iibsanayso. waa qodob kale oo muhiim ah haddii aad rabto inaad Alibaba wax ka iibsato. waxaadna iska eegaysaa quality-ga alaabta oo ah tayada alaabta iyo quantity-ga oo ah tirada alaabta. Quality-ga alaabta ama tayada alaabta waa muhiim inaad iska eegtaa oo aad ogaataa waxaad iibsanayso in tayadooda ay wanaagsan yihiin. wax tayo xun haddaad gadato waxaad la mid tahay adigoo khasaartay. Tusaale, iPhone ayaad rabtaa inaad soo jumlaysato, waxaa jira kuwo fake ah oo raqiis ah iyo kuwo original ah oo qiimo sare ah. marka markasta ha fiirinin lacagta, inkastoo ay budgetkaada ku xiran tahay, haddana markasta aad alaab tayo wanaagsan leh aad iibsato waa ay ku anfacayaan. dabcan customerskaadana waad isku wanaagsanaanaysaan, ileen dadku waxay rabaan wax alaab fiican oo quality leh. Quantity-ga tirada alaabta ayadana sidoo kale waa iska muhiim. Alibaba markaad hal shay ka gadanayso iyo markaad alaab tira badan ka gadanayso way kala qiimo duwan yihiin. Alaabta badan ama jumlada ayaa ka qiimo yar markaad hal shay iibsanayso. xitaa supplierska badanaa waxay muhiimadda siiyaan qofka alaab badan ka jumlaysanayo, si fiican ayayna kula macaamilayaan. marka tusaale kaba ayaad rabtaa inaad iibsato 1 joog 2 joog,
waxaa laga yaabaa in laga iibinayo $15 laakiin markaad 100 xabo qaadanayso waxaa laga siinaya $5 marka waxaa waaye waa muhiim ayadana sidoo kale tusaale waxaan raadinaynaa saacad app-ka soo furo kadib waxaan search garinaynaa watch qor kadib sidii caadiga ahayd raadi qof 3 sano kadibna joogay kadibna fiir inta ay jumlada gadayaan adiga ka soo kala ogaan doono farqiga u dhaxeeya qodobka saddexaad asxaabta qodobka saddexaad waa qodobka ugu muhiimsan waana inaad taxadar badan samaysaa qodobkan waxa weeye inaad iska eegta ama hubisa halkaad lacagta ku dirayso Alibaba waxaa dhici karta in supplier-da qaar ay ku gaadaan oo ku dhacaan laakiin si taas looga badbaado shirkaddu waxay soo saartay barnaamij qofka si kalsooni ku jirto lacagtiisa uu ugu dirayo Alibaba ayagana ku ballan qaadayo lacagtaada in ay ku haynayaan ilaa alaabta aad rabtay aad ka hesho barnaamijka magaciisu waa Trade Assurance haddii aad la yaaban tahay sharaxaad dheeri ah ayaan ku siinayaa Alibaba marka aad qof supplier wax ka gadato waxaa laga rabaa in lacagta aadan ku dirin meel kale waxdaba meel kale meel aan Alibaba ahayn oo aad ku bixiso platformka Alibaba ayaa laga rabaa platformka aan Alibaba ahayn ama website-ka Alibaba meel aan ahayn lacagtaada ku dirin waxaad isticmaalaysaa kaarkaaga Visa kaarkaaga ama debit kaaga credit kaaga everything wuxuu ahaadaba ama master kaarkaaga ka fojignaaw hadda waa iga talo ka fojignaaw inaad meel aan ahayn Alibaba aad lacagta ku dirto supplier-da qaar ayaa ku weydiisanaya in bangiya ayaga u gaara aad lacagta ugu dirto ayagoo ka cararaya Trade Assurance-ga waa maxay marka sababta ayaa ah haddii Alibaba lacagta aad ku dirto Alibaba lacagta uma fasaxiso qofka supplier-ka ilaa in qofka alaabta gatay ama adiga alaabta gadatayba ay ku soo gaarto oo aad ka dhahdo confirm alaabtii waan helay taasina waxay ku siinaysaa kalsooni alaabtaada ilaa ay ku imaado oo aad iska jeegarayso in alaabta aad dalbatay ay ayada tahay quality-gii alaabta tayadii midda aad dalbatay inay tahay markaad iska hubiso everything ay raadiinay saxiin waxaad leedahay confirm alaabtii waan helay kadibna Alibaba marka waxay sameynaysaa qofkii ayay lacagta u fasaxisaa balse ugu horeyn waa inaad iska hubisaa qofka aad alaabta ka gadanayso inuu leeyahay Trade Assurance tusaale ayaan rabaa inaan idin tuso marka furo application-ka kadibna ayaan alaab noocaad rabto raadi marka aniga eyeglass-kan ayaan iska raadinayaa eyeglass kale qorayaa kadibna sidii process-ka kale ayaan soo raacaya qof 3 sano iyo ka badan ku jira ayaan raadinayaa marka Trade Assurance-ga ayaan rabaa inaan idin tuso marka hadduu midaasi leeyahay taa micnaheedu waa inaad awooddo in lacagtaada Alibaba ku dirto kadibna si kalsooni ah kugu hayaan waayahay waxaan soo gaarnay dhamaadka muuqaalka waxaan idin rajeynayaa qof kasta raba in uu Alibaba ka adeegto ama wax ka soo gato in uu muuqaalka wax un ka faa'iiday waxaana idinka codsanaa in 1,000 subscribers ay wax yar un igaga dhiman tahay idinkana gaarsiin kara fadlan isi faafi kanalka oo ra'yigana igu soo biiri adigoo igu soo diri karta qaybta commentiga aad baad u mahadsantihiin wayno kulanti dambo insha Allah ta'ala